أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دغيستياشا qiimaha iyo qaayaha mudan oo ku soo dhawaada radio xariirad oo aan maanta waraysi dheer kula yeelanayno guddiga xisbiga mucaaradka Maxamed Roble Buraale oo ku sugan dalka Belgiumka mudane Maxamed Roble Reyaale ku soo dhawaada radio xariirad waa maadsantahay khadar waa maadsantahay mudane waxaad ka mid tahay guddida xisbiga USN ee dalada mucaaradka dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee ku sugan qurbaha gaar ahaan dalka Belgiumka waxaa jira siyaasadda aad isku haysaan xisbiga hadda talada haya iyo idinka bal wax ma nooga taaban kartaa marka koowaad wada hadaladiinii sababta ay u joogsadeen بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا ودن إبا له لقوا ما تشان حريص رسولك مضنا وما تدين هاي مع النبي قوي معي هي وكم مع الناس يعملين الليل اللهم صل وسلم وبارك عليه وما تنتهي خضر وحوي ما دركتي هداد وحيوي دي سي أرنت كوسابسن ولا هذا الكا ودكتي إنه ما دركتي إمك ولا هذا الكي والسعودي دولة يوم ما دركتي أحزاب تسكتكتي USN إنه جوكسدي kadib maad aragtay bil wala hadal socday inuu maad aragtay 14 bisha September inuu joogsaday taasoo ugu wacan dadka dawladda ka timiday arqaladaasoo ka timiday dadka dawladda iyakiyo maad aragtay ku andacoonaya inay maad aragtay si ku darqinaya axzaabta maad aragtay USN inay qaataan 10 kursi oo baarlamaanka inay qaataan siday u soo siidayaan dadka wad ogtahay dadka madaxda badan ee maanta ku xiran jeelka dhexe ee gabood iyakiyo ma aragtay taa iyo 10 kursi oo qasaba oo ku darqina inay ma aragtay ku qaataan ma aragtay USN qolka arintaasi darteed u joogsatay dhinaca dawladda way ka timiday waa nasiib darro weeyaan qolka dad badan oo Djibouti waxay rajab badan geliyeen wala hadalkaasi in arrimuhu ku dhamaadaan qolka de nasiib darrana maanta meel daran bay maraysaa waayo shirkaasi uu joogsaday wala hadalkaasi uu joogsaday waa sida darteed weeyaan ma aragtay dadka dawladda way ka timiday okay maalintii dhaweetay ciidii dhaweetay wuxuu madaxweyne Ismaaciil Margeele ka sheegay barxadda in ay jiraan dad qaswadayaal laakiin ayna jirin wax xisbi mucaarada kadibna ay wada hadalkiina iyagu ay mataqaana dhinacood ka burburay wuxuuna ku eedeeyay inay iyagu mataqaana ay kala socdaan oo weli ay iyagu mataqaana haba yaraatay ayna lahayn wax mabda bal arrinkan maxaad ku oranahay waa runta madaxweyne Geele wuxuu ku eedeeyay mucaaradka wuxuu ku eedeeyay inay maad aragtay bilaa inay madax lahayn inay mas'uul lahayn arintaasuna waa inay dadku fahmaan dadweynuhu reer Djibouti inay fahmaan wuxuu caynka u lahaana wuxuu doonayay inuu maad aragtay mas'uuliyiinta USN-ta barkooda inuu maad aragtay qasab kaga saxeexo 10 kursi aan ku sheegay wad ogtahay maad aragtay doorashadii dhacday 22 bisha maad aragtay February waxay maad aragtay si ballaaran si aad u ballaaran oo maad aragtay marag Madonna ayay maad aragtay ku heleen oo maanta waxa marakacaya maad aragtay waraaqadii PV-yadii laga soo saaray bureau de vote kastaba laga soo saaray ee haystaan mucaaradku ayaa cadeynaya isagoo cadeyntii uu waayay qolkaasi darteed iminka si wuxuu u bartay in qasab inuu maad aragtay wax kastaba ku marsado way u suurtagal leedahay qolka mas'uuliyiinta waxay ku yiraahdeen ma saxayno inaan qadcisid baan u baahanahay sidaa darteed ayuu u lahaa draftii maad aragtay ciida waxa weeyaan maad aragtay mas'uuliyiin marab uu lahaa laakiin mas'uuliyiinta USN way u jawaabeen khaasatan imika mas'uulka maad aragtay ku haya maad aragtay ku meelgaadka Ismaaciil Geedi Xareed khaasatan waa kii u jawaabay wuxuuna ku yiri maad aragtay inay maad aragtay mas'uuliyiin leeyihiin USN waa muuqata xilkasnimadu way muuqata nabadda inay hayaan way muuqata maanta maad aragtay mas'uuliyadu meesha jirto way muuqata iyo ninka wadanka qasaya meeshuu joogana way muuqata laakiin nabadda oo aan jecelnahay oo kol kasta maad aragtay USN ay ku carabka saarto waxa weeyaan shicibka gacanta ku haya shicibkuna maanta dadka USN buu yahay falilahi alhamdu
dhinaca kale waxaa lagu eedeeyaa in waxaa imika mataqaanaa soo baxaya in xisbiga dalada USN mucaaradka lasoo dhexgeliyo qabiile lasoo dhexgeliyo cayn qabiil oo la rabo in qabiil lagu kala jebiyo bal arrinkaas maxaad warwaysaa waa runta khadar inaad arrintaa aad taabatid waayo maad aragtay talisku wuxuu kol kasta doonayaa inuu maad aragtay dadka kala qaybiyo waayo danbaa isaga ugu jirta inuu dadka kala qaybiyo inuu mid iyo meel u joojiyo inuu qolo kastaba maad aragtay majlis u sameeyo inuu maad aragtay qolku dadka maad aragtay ka qaadayo maad aragtay onkeedada iyo dadka la xirayo iyo dadka la dilayo inuu qabiil qolo maata inuu yidhaaho waxaasoo meelan waxay kamid tahay 36 sanadood siyaasadda foosha xun ee lagu soo waday bay kamid tahay qolka maad aragtay isagu dantaabuu mala moodaya laakiin USN way isku duuban tahay qabiilka kaliya maanta aan leenahayna waa USN qolka waxaan leenahay maad aragtay aan u gudbinaynaa oo leenahay dadka walaalaheena dadka ciidamada ku jira maad aragtay booliska dadka maad aragtay dawladda u shaqeeya inay maad aragtay arrintaasi maad aragtay inaa laga joogsado siyaasadaas waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa nin daad qaaday xumbo cuskay waxaasi waa xumbo wuxuu mooday maad aragtay malaw mooday way la noqotay laakiin ummadda reer Jabuuti way isku duuban yihiin midna way yihiin waxa maalin dhaweyta soo baxay oo sirdoonka mucaaradku ay soo bixiyeen oo ay website-da soo geliyeen saxaafadaha adduunka in ay jiraan inay heleen cadaynaysa in xisbiga hadda talada haya sirdoonkiisa uu kusoo batay wadamada ama basaasiintiisa aan dhaxnay kusoo bateen wadamada Yurub gaar ahaan Belgiumka iyo Faransiiska iyo Holland bal adiga maxay kula tahay waxyaabahaas sideed u aragtaa khadaro maad aragtay imika un maahine weligiiba siyaasadda waa inaad fahantiin inuu maad aragtay madaxweyne geelle kolka ugu horeysaba wuxuu u shaqayn jiray taariikhdiisa wuxuu ahaa nin maad aragtay ku jira maad aragtay roobsenimo waxaan afka qalaad lagu yidhaahay maad aragtay sid maad aragtay sidii maad aragtay wax doon maad aragtay ciidamada maad aragtay jaajuuska ee Faransiisku kamid ahaan jiray kadib maad aragtay qolku maad aragtay ku soo biiray maad aragtay dawladda Jabuuti waxa weeyaan waxaad moodaa talada sidoo dad wadanka u wadan waxaad moodaa inuu kol kastaba itaalka saaro in maad aragtay dadka la soo basaaso in maad aragtay dadka laga shaqeeyo imikana wuxuu arkayaa in maad aragtay reer Jabuuti ay baraarugeen khaasatan dadka reer Jabuuti ee xorriyadda haysta waxa weeyaan waa dadka dibadda jooga weeyaan kolka waxa kaliya mala mooday waa inuu dadkaasi maad aragtay laga shaqeeyo la soo basaaso waa run weeyaan waa wax jira weeyaan waa xaqiiqo jira dadka barkood waa maad aragtay waa loo hanjabaa maad aragtay dibadda waa maad aragtay waan haynaa dad badan oo loo hanjabo oo maad aragtay loo caga jugleeyo oo la yiraahdo dhibaataan waxbaan gaarsiinayna laakiin waxaasi maanta reer Jabuuti way ka ilbaxeen way ka maad aragtay way dhamaatay beentii way dhamaatay cabsidii way dhamaatay maanta waxa la doonayo waxa weeyaan waa horumar baa maad aragtay loo dirirayaa waxa dadka reer Jabuuti u dirirayaan waxa weeyaan waa dimuqraadiyad waa horumar waa xorriyad waxa weeyaan ina faqriga laga baxo waxa weeyaan ina maad aragtay biyo la'aanta laga baxo tacliin fiican la tayala la helo waxa u baahan yihiin reer Jabuuti maanta inay maad aragtay ka muuqdaan mandaqada maad aragtay geeska Afrika waxay u baahan yihiin maad aragtay inay noqdaan dad maad aragtay wadankoodu iyo ay leeyihiin uu qof kaliya u tagay qolka uu fahmay inay maad aragtay halka tahay laakiin wuxuu doonayaa maad aragtay sufalka amba maad aragtay tariiga soo baxay iyo dadkaasi maanta iraadadooda ay doonayaan inuu ku fadhiisto doonaya laakiin maad aragtay insha Allah maad aragtay dadku way diidan yihiin dibadda ha joogaan ama gudaha joogaan okay marka la eego sirdoonku sida aad sheegtay inay hanjabaado ay jiraan oo qaar loo hanjabo oo qaar mataqaana ay sirdoonku hataa warbixintooda ku sheegeen in qaarka dadkood la tabiyo magacdooda la tabiyo kadibna dhibaato loogu geysto faamiyada ay kasoo jeedaan ee gudaha Jamhuuriyadda Jabuuti ku nool qaabkee loogu hortegi karaa oo dadka isku badbaadin karo xuquuqdooda loogu doodi karaa waxa weeyaan qolka ugu horeeya maad aragtay ina horta qofku fahmo waxaan maad aragtay uu shaqeynayo qolka ugu horeysa waxa weeyaan dadku inay ku sugnaadaan horumarka la doonayo qolkii gobonimada loo dirirayay sida un baahayd waayo waxaan anu kol kasta barbar dhigaa
waqtigii gobonnimadan barbardhigaa maad aragtay dabeesha maanta socota gobonnimo u dirarkii dadkii gobonnimada u dirirayaba maad aragtay ayaan barbardhigaa waayo waxaan u barbardhigana waxa weeyaan wixii la helay maad aragtay gobonnimo doonkii dadkii ugu soo dhinteen waxay heleen ayaa maanta wax leeg baan doonaynaa waayo gobonnimadii aan maad aragtay loo soo halgamay ee dadku u dhinteen maad aragtay halkan kama soo tirinaya laakiin dadkii badnaa ee wala garanayna usoo wala dhintay waxa weeyaan waxay dhacday inuu maad aragtay 2 qof ama 3 qof inay maad aragtay dib u hantiyaan dad innaka naga mid ah inay dib noo gumaystaan inay maad aragtay xorriyadii iyo wixii loo dirirayo ku dhamba inay ku fadhiistaan ee jab ku ritaan lacagtii dadweynahana maad aragtay inay ku tarkifalaan qolka sida darteed bay la mid tahay maanta inaan maad aragtay ninkii caddaa uu socday laakiin dad madow oo ninka naga mid ah ayaa maad aragtay xorriyadeennii maad aragtay dib u qaatay inaan dib u soo ridano waddanka dib loo xoreeyo inay dadkaasu ay ogaadaan weeyaan arrintaasi waxa lagaga maad aragtay badinaya dadkaasina waxa weeyaan waa casiimad weeyaan inaan lagu adkaysto inaan arrintaa la wado inaan iyakana loo sheego inay beritoole iyakana xeer laga soo tiigsan doono inay ummadda kol kastaba ay badin doonto dadka maad aragtay gudaha joogana taa way fahmeeno maanta waxa weeyaan dee qof waa la xidhi karaa 2 qof waa la xidhi karaa laakiin ummad lama xidhi karo ummad lama xidhi karo maanta gaboodna ma wala geyn karo rasaasna waan ka badannahay gaboodna waan ka badannahay adoo iga raaliya waxaa laynagu eedayaa xisbiga in ay lahayn qorshe siyaasadeed laakiin qorshihiina keliya aad ka simantihiin uu yahay in xilkaad ka tuurtaan madaxweynaha talada haya laakiin una jirin qorshe inay diyaarsan iyo cid aad mataqaana hoggaanka u dhiibataan taasina ay tahay aynii keenaysa burbur dhexdiina inagu soo eedan bal arrinkaas iyo dhaleecaynta lagu soo jeediyey bal maxaad kaga jawaabi lahayd waa runtaa maad aragtay dadka dabadhilifka dawladda u shaqeeya arrintaasi waxay moodaan kolkol way soo tuuraan oo waxay yidhaaheen barnaamij mala bayna yidhaahin waxa weeyaan barnaamijka maad aragtay USN waxa weeyaan waxa ugu weyn weeyaan waxa ugu muhiimsan weeyaan waxa weeyaan dawladdu inay dawladeedii kusoo noqoto dawladdu waxay noqotay USN way sheegtaa shalay way sheegtay waxa weeyaan ilaa iminka waa 8 bilood arrintan waxay socoto qolkii ugu horeysay waxay yiraahdeen bil ma gaarayaan dhaafta waa qabanayna way dhaafeen 3 bilood ma gaarayaan bay yiraahdeen waa la dhaafay maanta xalka ay socoto maad aragtay faraha ka baxday dadku way sii xoogeysanaysaa hay'adihii baa maad aragtay iminka bilaabay inay maad aragtay manifestation sameeyaan laakiin barnaamijku waa maxay haddaad wax iga weydiisay waan kaaga jawaabi barnaamijku waxa weeyaan dawladdu inay dawladeedii ku soo noqoto waxa weeyaan dawladdii waxay noqotay meel uu qof uu leeyahay bay noqotay meel uu qoys leeyahay bay noqotay meel ay reer leeyihiin xaas uu leeyahay bay noqotay qolka waxa weeyaan inaan taan laga baxo oo qarankiisii ku soo noqdo boolisku maad aragtay bileysku inuu ku soo noqdo qaran boolis national oo dib u noqdo inuu maad aragtay gendarmeku waxa laga dhigay milice baa laga dhigay qof wadeega inuu ku soo noqdo gendarmerie national wixii loo leeyahay qaranka u shaqeynayay ummadda u shaqeynayay ciyaalka u shaqeynayay dumarka u shaqeynayay qaranka u shaqeynayay inuu maad aragtay dib u noqdo qolka waxa weeyaan wadankiisii inuu soo noqdo uu sheegay maad aragtay Ismaaciil Geedi Xareen madaxweyne Ismaaciil Geedi Xareen uu sheegay wuxuu yiri waa inaan ka gudubnaa 36 sanadood ee madow aan soo marnay inaan u gudubnaa waxa la yiraahdo Deuxième République waxa ka dhigan tahay jamhuuriyadda labaad inaan loo gudbo oo maad aragtay waqtigan maad aragtay xun ee soo marnay inaan ka gudubno insha Allah iftiinkaan u baxno okay waxa dhawaan madaxweyne Ismaaciil Margeele uu ku yimid dalka Belgiumka kaga qayb galayay taasi waxa ka soo horjeesay dad badan dadka aad ka mid tahay Belgiumka degan mucaaradka mudaharaadiyada ka soo waxa bilaabmay in safaarada la galo safaarada dadkii galayna waxa lagu eedeeyay in ay ka soo jeedaan taliska oo uu ka dambeeyay madaxweyne Ismaaciil Margeele si uu sumcadda ugu dilo USN-ta arrimahaas maxaad ka oran lahaa halka socod arrimaha waxaan ka oran lahaa horta waxaan kamid ahaa dadka ma aragtay safaarada galay kamid baan ahaa qolka waxa weeyaan deemad aragtay dadku waxay doonaan bay oran karaan laakiin waxa weeyaan muxuu ahaa
ujeedada maad aragtay safaaradda ujeedada maad aragtay gelitaankeyga bar kalena waxay yidhaaheen inaad safaaradda la gala ma ahayn maad aragtay waayo waa qarankii waayo maad aragtay inay nin kastaba sibuu u macnaystay laakiin xaqiiqadu maxay ahayd ujeedadu maxay ahayd kolkaan aragnay inuu maad aragtay wala hadalkii ee rajada la geliyey maad aragtay inuu cakirmay inuu maad aragtay dawladdu maad aragtay qof maad aragtay ay u haysan maad aragtay mucaaradka dad maad aragtay la sheekaysan karto sidee doonayeen maad aragtay u noqon weyday waxa dhacday inuu Ismaaciil Cumar Geelle uu yimaado isagiyo TCC maad aragtay kala daadiyay inuu yiraahdo tii Soomaaliya dhisaya maad aragtay yimaado Brussels kolka waxa ka dhigneed sidaan maad aragtay adduunku uu u arko ninkan inuu maad aragtay ahay in la diiday sidaan u muujino maad aragtay waxaan doonayno waxay ahayd inaan maad aragtay actionkaasi wuxuu ahaa in maad aragtay adduunka lagu soo jeediyo oo la yiraahdo maad aragtay ninkan maad aragtay dhakan joogay Brussels jooga waa nin maad aragtay diiday waa nin wada hadalka diidan waa nin doorashada maroorsada waa nin dictator weeyaan kolkaas darteed weeyaan maad aragtay ficilkaas uu ahaa de wixii laga doonayay waa laga gaaray waayo maad aragtay aad bay adduunka uga hadlay arrintaas okay dhinaca kale waxa soo baxaya warar sheegaya safiirkii dalka Belgiumka ee Jamhuuriyadda Djibouti inuu hadda ku sii jeedo inuu isku dhiibay xisbiga mucaaradka USN bal waxa maxad kala socotaa walahi khadaro wararkaas warar aan haya maaha maad aragtay waxaan kaaga sheegi karana ma jirto waayo war aan maad aragtay anigu maad aragtay maantada ayaa waxaan ku siin karo oon ku oran karo sidaa oo maad aragtay aan ku ogahay warkaas ma jiro okay sida aan wada ogsoonahay mucaaradka iyo maxaafidka waxay bilaabeen mucaaradku ay soo sameeyeen mudaharaadyo kala duwan waxay hor dhigeen baaq u jeediyeen caalamka haddaba wadamada qaar kamid ah ayaa waxay taageereen xisbiga USN mucaaradka halka ay wadamo ay weli imika ay kasoo fikirayaan siday mataqaana baaq siday ugu soo jeedin lahaayeen madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle inuu kusoo dabaalo wada hadal labaad haddaba waxaa nagu maqaalaa in dalka Belgiumka uu noqday wadankii ugu horeeyay ee la hadla madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle bal arrimahaas waxaasoo dhan maxaa kala socota waa runtaa weeyaan qolka ugu horeysa qaraar baa soo baxay qaraarkii ugu horeeyay ee soo baxay wuxuu ahaa midowga Yurub baarlamaanka Yurub ayuu ahaa qolka waxay soo saareen wax la yiraahdo afka qalaad resolution ay soo saareen resolutiongaasna maad aragtay oo ku saabsan Djibouti waa qolkii ugu horeeyay taariikhda Djibouti ee resolution laga soo saaro dalka Yurub ee maad aragtay la fariisto qolka baarlamaankii dhamaantii isagiyo arintaasi si qof kaliya u footayay waxay ka dhigan tahay in ujeedadu isku wala raacay arintaasi wuxuu Djibouti ka codsaday inay maad aragtay arinta la dhameeyo dadka la leeyahay la joojiyo maad aragtay jicidka dadka lagu hayo xorriyad darrida maad aragtay wuxuu ku dhan maad aragtay ayaa laga hadlay qolka resolutionka Djibouti waa loo diray waxa weeyaan waa qaraar adag oo laga soo saaray bay ahayd Djibouti kolka waxaad ogtahay in Yurubta wadanada Yurub maad aragtay maadaama ee baarlamaankii Yurubtu uu maad aragtay qaraar ka qaatay wadan kastaba waxaan sameynaa shaqo oo dhan maad aragtay inay maad aragtay wadan kastaba inuu maad aragtay uu isna uu ka soo saaro inta sidii Yurubtu ay ka soo saartay ilaa inuu ka soo saaro qolka maad aragtay waa run in Belgium aan joogno maad aragtay qaraar caynka ayuu maad aragtay baarlamaanka maad aragtay dhawaan marin doona waxa kale oo jira maad aragtay sida sileeg maad aragtay Faransiiska dawladaha waaweyn sida Jarmalka oo kale waxay iyakuna qudadoodu soo wadaan qaraar ay soo wadaan wax weeyaa waa wax muhiima oo lagu farxo waayo maanta maad aragtay adduunkii waxaad moodaa inuu maqlayo dhawaqa ka soo yeeraya ummadda reer Djibouti waana muhiim weeyaan waad ogtihiin maad aragtay inay fadhiisatay Genève daartii dhaweyd droit de l'homme-ka arintii ku saabsaneyd kolka taana qudadeedu waxay tahay waxay ummadda reer Djibouti siinaysaa dhiirigelin waxay siinaysaa inay maad aragtay arintan ay wadaan inay xaq tahay waa adduunkuna la socdo okay maxaa xal ah haddii mar labaad la soo noqon waayo gogosha oo xisbiga USN maxaa u xala oo ay qaban karaan waa runta ina su'aasha ay weydiisid waayo waa muhiim arintaasi
horta maad aragtay madaxweyne geelle uu ku qasban yahay inuu miiska soo fadhiisto hadduu soo fadhiisan waayese waxa weeyaan arrintaasi farahay ka bixi doontaa mucaaradkana farahooda way ka bixi doontaa isagana farihiisa way ka bixi doontaa kolkaa qof ee wax aasi u dan ee tahay ma jirto waxaa dhici doontaa wakti inuu imaado ay maad aragtay mucaarad iyo muxaafidba meel laga soo qabto la waayo waayo cadaalad darradu hadday badato dulmiga hadduu bato dadka la dilayo hadday bataan jicidku hadduu bato midhadu hadday badato dadka bini-aadanka waxaa ku abuuran dareen la yidhaaho inuu maad aragtay uu arrintaa qaadan karin kolkaa midhadiidka iyo horumar u dirarku sidaa uma fadhiyayaan kolkaas sidaa darteed baan ka leenahay ismaaciil cumar geelle maanta danbay ku tahay inaad miiska kusoo noqotid xaqana aada ogolaatid labadaaba danbay ku tahay baan leenahay haddaanu eegna xagga dhinaca warbaahinta jamhuuriyadda jabuuti maaha xor oo intaas waxaa la xidhaa saxafiyiinta waa la xidhaa waana la cadaadiya wax oo xor ah oo loo sii daayo oo waraysiyada sida qaarkood oo mucaaradka oo la siiyana ma jirto haddii ad inigu laakiin aad ku guulaysataan oo jegada hantidaan maxaad ka bedelaysaan xeerka saxaafadda waa runtaa waxa weeye maad aragtay qolka ugu horeeya waxaa la yidhaha liberté de la presse waxaa la yidhaha jira liberté de la presse-ku maad aragtay amba xorriyatul qawlka iyo inay dadku maad aragtay wax qori karaan wax soo saari karaan jabuuti waxa weeyaan waa wax looga oqoon weeyaan waa wax dadka lagu dilo weeyaan ha iska badaa jabuuti maad aragtay inaa keliyata maad aragtay inaa maad aragtay laga dadka la xakameeyo jabuuti keliyata maaha wuxuu sameeyaa talisku wuxuu sameeyaa lacag badan buu bixiyaa oo maad aragtay wargeysada adduunka barhkood ayuu siiyaa oo ku tuhunno maad aragtay barhkood maad aragtay inay toos maad aragtay geele maad aragtay amba taliska ula haystaan kolkaa lacagtaa badan ee wadanka jabuuti uu leeyahay ee ciyaalkiisii ay ka gaajoonayaan wuxuu ku bixiyaa wakaalado ku bixiyaa sidaa darteedna waxaad ii saamixi inaan u mahadnaqo wakaalada maad aragtay xariira news waayo xariira news waxa ina madax banaanideeda waxaa cadeynaya waayo waxay ku jirtaa liistiga maad aragtay inta xorriyatul qowl kale ee maad aragtay uu geelle ka mamnuucay wadanka waxa weeyaan waxay ka marakacaysaana inaad madax banaantiima ka marakacaysaa kolkaa waxa weeyaan arrintaasi waxay ku jirtaa maad aragtay barnaamijka mucaaradka waxay ku jirtaa waxaan mugdiga inaa laga gudbo maad aragtay aan doonayno waayo meel bilaa maad aragtay xorriyada meel bilaa maad aragtay xorriyad uu maad aragtay wax maad aragtay laga qorayn dee siyaasiyiintu maanta sidan geelle uu yahay unbay ahaan doonaan haddii umaad aragtay uu jiri weydo xorriyad liberté de la presse ay jiri weydo kolkaa waxa weeyaan waa muhiim weeyaan waa wixii sheegayey wixii sameeyey waxaa la yidhi waraabu hadduu neef qaato waa lagu qayliyaa waa dadkii ku qaylinayey waa dadkii wax qorayay weeyaan kolkaa waa muhiim weeyaan laakiin waxa weeyaan waa ujeedada idile ee u halgamayso maad aragtay maanta mucaaradkuna okay haddaynu eegin anaga ku jirna gabagabadii barnaamijka maxaa xalabaad is leedahay oo maanta xisbigu oo dadka mataqaanaa usoo bandhigi karaa waxa weeyaan xalku waxa weeyaan inaan maad aragtay dhammaan gacmaha la isqabsado waxa weeyaan maanta ma joogno waktigii la kala beerbeerayay ma joogno waktigii maad aragtay la odhanayay axsaabta ma joogno waxa weeyaan la tartamayay tartanku xalaasha ahaa ma joogno waayo maanta waxa weeyaan inaad laysku wala imaado xusbi maad aragtay kastaba waka USM baa laisugu wala yimiday dhammaan sensibility kaste hadday noqoto maad aragtay intaan dhammaan xoogeenina meel keliyaata aan isugu geyno waayo maanta waxaan doonayno waa wax keliyaata maad aragtay nidaamkan intaas soo jiray wuxuu ahaa nidaam maad aragtay musuq maasuq iyo maad aragtay dhibaato iyo jicid iyo maad aragtay lacagta dalkoo la mararsado dadkoo la xidhxidho maad aragtay dhammaan intaa kusoo jiray buu ahaa waxaan doonaynaa wax jadiida aan doonaynaa kolka wax jadiida la doonayo waxaa la yidhaha revolution baa la yidhaha waxaa la yidhahaa maad aragtay kolkaa waa inuu dadku ay isku tagaan kolkay dadku isku tagaan bay arrintaas suurtagali kartaa maanta waxaad moodaa maad aragtay inay dabeesha jadiidka inay maad aragtay bilaamatay waa inaan xoojino khaasatan dadka dibadeed jooga waa dad maad aragtay xorriyad haysta waa dad maanta fadhiyo maad aragtay awoodda maad aragtay karaya maad aragtay inay isnidaamiyaan
inaan maad aragtay sidan aan wax u wadno inaan kasii xoojino inay dadku maad aragtay meel kasta ay joogaan haddii maad aragtay North America noqoto Europe haddii noqoto Asia haddii noqoto iyo dhammaan maad aragtay inta kale iyo wadanka dhexdiisaba inaan maad aragtay aan iska abaabulno dadkeedu waxay u baahan yihiin inaan la garab joogsano qolka waa muhiim baan leenahay insha Allah waa wadnaa ilaahay maad aragtay guusha hana siiyo hanu garab galana waxana wadno